بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، waxaan rabaa maantay inaan kelimad ka iraahdo. warkeeduna ma yara, dadka ka hadlana ma yara, anaa harayna looma hadlo. laakiin waxaan rabaa hal arrin oo intaan dhageystay oo ka hadashay meel kasta caalamka ay ka joogaan aysan aad ugu tiigtiiganin, walow qaarkood ay soo qaateenba, inaan ku daro arrintaas si wax looga qabto kufsi wadareedka ka dhaca Soomaaliya. magaaladii doonta ha noqoto, degmaday noqoto ha noqoto, gobolkay noqoto ha noqoto, maamulkay doonta ha noqoto ee Soomaaliya waxaa ka soo ifbaxay waxyaalo aan horey loo aqoon oon jiri jirin. jirooyin sickness ah oo maskaxiyan la dhihi karo qofka dadka noocaan ah maskax ahaan ma fiyooba ayaa ka soo baxay. waxaa soo baxday inay is-abaabulaan dhallinyaro Soomaaliyeed oo la dhihi karo maskaxiyan ma fiyooba. xaggee bay ka dhacday marka? xaggee laga haystaa jirradu? xaggee uga dhacda jirrada? yaa ku lug leh? yaa la rabaa inay wax ka qabtaan oo ku baraarugaan? kow, jirradu waxay ka timid filimada xunxun oo Soomaaliya ku ballaqan oo ku furan. Soomaaliya waxay noqotay saaxa maftuux, waxay noqotay wax kasta oo caalamka ka reeban ama xadidan ayaa ku fatahan. farmashiyaasha Soomaaliya tuulooyinka yararka ku yaalla haddaad tagto oo aad baadho, ayaad waxaad ogaanaysaa Soomaaliya in qashinka adduunka la ilaaliyo uu ku fatahan yahay, oo qofku access u leeyahay inuu helo waxyaalaha sahlahaya maskixiyan inuu dhallinyaradu u waalato, diin ahaanna u baaba'aan. kiniyaasha khaldan oo adduunka caalamka aan la ogolayn ilaa qof loo soo qoray oo da'ah oo takhtar u soo qoray ma ahana wax kale aan loo ogolayn. Soomaaliya tuulooyinka yaryarkaa bay dhooban yihiin. waxaa nugu soo gataa ofada counter baa u tegaysaa wiil oo dhallinyaraha ah shumuu qalaaleen oo soo laftiisu cunay baad ka soo gadanaysaa, oo dhallinyarada fadka saaraya, oo odayaashu ka gadanahayaan, oo qof alla qofka doona qaadanahaya. waa dhinaca kiimikaalka iyo waxyaalahan bannaanayn oo dhallinyaradan laga yaaba qayb inay ka yihiin inay waashaan oo ay kontarooli waayaan himmadooda iyo rabitaankooda ay halkaa la marto. waxaa kale oo qayb ka ah internetka saan sheegay oo Soomaaliya ku fatahan oo furan, oo qof kastoo qolkiisa ku jira wax alla wuxuu doono uu soo degsan karo oo uu fiirsan karo waxyaalaha khaldan oo gaaladu ay samayso inay dhallinyaradu fiirsadaan. halkaana laga koobiyaalay faaxishada halkaa ka dhacda ay ka qaataan halkaas, oo ayagu ay yihiin mutafaxishiin, dad barbaratooy ah oo gaalo ka soo guuriyey xumaan inay yihiin. waxaa laga rabaa marka dadka internetka leh, shirkadaha waaweyn oo internetka soo daaya, waxaa laga rabaa inay caqli la yimaadaan. baa laga rabaa inay xakameeyaan waxyaalaha xunxun ayaa laga rabaa, oo ay dadka u soo daayaan waxyaalaha faa'iidada leh. caalamka waddamo badanoo waxaa jira aan laga fiirsan karin waxyaalaha xunxun oo dhan laga fiirsan karin oo xakamaysan yahay, shacabkooda ka fikirayaa jira. shirkadaha waaweyn oo ay ka mid yihiin Golis, oo ay ka mid tahay Samtel, oo ay ka mid tahay Hormuud, iyo kuwa kale oo waaweyn oo Soomaaliya, dhammaan waa wada furan yihiin. lacag baa laga sameeyaa internetka, baa qofka loo soo daayayaa. lacagta laga sameeyaa waa malaayiin dollar. dadka shirkadahaas lihi waxaa laga yaabaa 10ka dambe ugu dambaysa xaj kasta inay xaramka aadaan. waxay lacagta ka sameynayaanna ay waxaas tahay. waxaa laga rabaa marka inay fakeraan oo ay dadkooda ka fakeraan, oo ay diintooda iyo akhlaaqdooda ka fakeraan,
oo ay dhaqaalahoodii meesha ka soo galaya ka fakaraan oo waddankooda ka fakaraan dadka maamulada ah oo maamulka jooga ama Puntland ha ka tirsanaadeen maamulka Puntland ama gobollada kale oo dalka ha ka tirsanaadeen ama dawladda federaalka ha ahaadeen ayagana mas'uuliyad weyn baa ka saaran inay ka fakaraan shacabkooda waxay fiirsanayaan aqligooda iyo maalkooda waxyaalaha loo diray oo haday dad xalaaqal iyo diin la ay yihiin inay ka fakaraan raba ayay ka mid tahay dad badan baa ka hadlay arrintaas si fiican uga hadlay culimo badan caalamka ayaa ka sheekaysay waxa loo baahan yahay marka waxqabad baa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay dadka hadda la hayo kuwa hadda la xukumay xukunka in lagu fuliyo oo ay u noqoto cibro kuwa ka dambeeya oo raba jirka inay qaadaan waxay ku cibro qaataan inay noqoto intaas oo jeer baa waxyaalahaas kala dhaceen ay ka dhaceen tuulooyinka Soomaaliya tii ugu yaabka badnayd oo ugu horeysay waxa kamid ah kuwa ugu horeeyay ku jirtay waxa kamid ah tii Galdob ka dhacday oo wiilashu inta qaatay inta 5 wiil ama 6 wiil ay gabdho kufsi wadareed ku sameeyeen wixii ka dhacay iyo si loo xukumayna ilaa hadda dacaayadeedii iyo falxumadeedii meel ka socoto ta ula baaca la soo qaatay dhabarka saas looga taabtay wiilal looga taabtay hadhowna la yiri waa la xiray sheekadina halkaas ay ku baabaaday dad soo dhaxgaleen la yiri maya wiilasheedii marka diinta shariicada baan ku qaadaynaa shariicada islaan ku qaadaynaa inta ula baaca la soo qaatay dhabarka saas looga taabtay markaas filana laga dubay waliba oo la yiri waa la xanuujiyay xadkii baa laga oogay waana xirnay agarad waxyaalaha marka dhaqan xumada ah oo la xukumahayo in laga gudbaa la rabaa qofku wuxuu xaq u leeyahay in lagu qaado diinta shariicada inaan laga been sheegin waxa loo baahan in laga been sheegino qofka hadduu waxado wuxuu doona ha ahaado qofu doona ha ahaado ama reer ugaas ka soo jeedo ama reer cilaan ka soo jeedo qofkii waxada oo ay ku cadaato in gacanta la jaro kii kufsada oo ay ku cadaato in wax islaamku qabo lagu qaado kii qof dila wuxuu doona ha ahaado qoysku doona ka soo jeedo reerku doona ha ahaado inuusan ka sarreynin shariicada ka sarreyn oo shariicada lagu qaado wax islaamku qabana lagu fuliyo inta ayaan ku soo koobayaa kalimadeyda. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.